السلام عليكم daawadayaal wanaagsan oo waxaan ku soo dhawaada barnaamij cusub barnaamijkani waxaan kaga hadli doonaa saameynta cudurka corona ku yeeshay adduunka iyo waliba Soomaaliland anigu waxaan ahay Nuur Cabdi Iimaan sidoo kale barnaamijka waxay igu wehelin doontaa Nijuum Bulaale mahadsanid Nuura dabayaaqadii sanadii 2019 ayay ahayd markii ugu horeysay ee xanuunka COVID-19 laga helay magaalada Wuhan ee gobolka Hubei Shiinaha wadankaas Shiinaha waxaa sodonkii bishii koowaad 2020 hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah guud ahaan caalamka oo dhan bishan aan ku guda jirnay afraad 2020 waxaa gudaha 210 wadan laga diiwaan galiyay ku dhawaad 2 milyan oo kiis oo xanuunka coronavirus taasi oo sababtay dhimashada in ka badan 128 kun oo qof halka tiro gaaraysa 9 milyan qof xanuunkaasi ay ka soo kabteen waxaa sidoo kale la qiyaasayaa in heerka dhimashadu intaasi ka badnaan karo maadaama ay jiri karaan kiisas intaasi ka badan oo aan la diiwaan galin haddaba saameynta cudurka corona uu ku yeeshay adduunka guud ahaanba waxaa ka mid ah hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid suuqa saamiyada caalamka joogsiga isu socodka iyo waliba ganacsiga adduunka taasi oo ay sababtay hoos u dhaca shidaalka wax soo saarka warshadaha duulimaadyadii iyo isu socodkii dadka oo meesha ka baxay iyadoo wadamo badan oo caalamka dhaqaalahoodu ku tiirsanaa dhanka dalxiiska daawada qodobadani aan idin wadaagi doono waa kuwa sida aadka bulshada dhexdeeda looga dareemayo haddaba saameynta cudurka corona uu ku yeeshay adduunka guud ahaanba waxaa ka mid ah xidhidda masaajidada iyadoo ugu horeeyo masjidka xaramku waxaa sidoo kale korukac weyn ku yimid heerka shaqo la'aanta kadib markii la xiray guud ahaan goobihii shaqada taasi oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha bulshada xaaladda hoos u dhaca dhaqaalaha bandowga iyo shaqo la'aanta ayaa aad looga dareemayaa guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaana saameynta ugu weyn ku yeelatay dadka danyarta ah kuwaasi oo nolol maalmeedkoodu ku tiirsanaa shaqooyinka maalinlaha ah sida meheradaha wadida gaadiidka dadweynaha goobaha waxbarashada iyo wixii la mid ah Soomaaliland markaynu eegno xidhidda masaajidada iyada oo imaamyada lagu amray inay eedaamka kadib u sheegaan dadka inay ku tukadaan guryahooda hoos u dhaca tayada waxbarasho ee dalka xidhidda goobaha ganacsi sida iskuulada gaarka loo leeyahay dugsi quraanada meheradaha iyo waliba yareynta tirada dadka raacaya gaadiidka dadweynaha magaalada Hargeysa aan waqti xaadirkan ku sugannahay waxaa jira qoysas danyar ah kuwaas oo awood u waayay inay bixiyaan kirada guryaha ay ku jireen taasi oo sababtay in laga saaro isla markaana noloshooda ay banaanka ku soo dhacdo waxa ay gashay nolosha dadkii ka xamaaran jiray goobahaasi la xiray ama bes la xadiday inay shaqeeyaan kadib markii la xiray makhaayadihii iyo goobihii cuntada laga cuni jiray waxaa jira dad darbi jiif ah oo noloshooda ku xidhnayd goobahaasi isla markaana xaaladooda aad looga soo deerinayo sidoo kale dawladdu wali waxay ku baaqaysaa bandow cusub oo dambe oo ka bilaabmi doonta 20 bishani aynu ku jirno ugu dambeyn waxaa jira walaac iyo cabsi weyn oo laga qabo sii fiditaanka xanuunka coronavirus iyo sii kordhinta bandowga oo dad badan oo danyar noloshooda xabsi galiyay waa Nijuum Bulaale iyo Nuur Iimaan oo idin leh fi amaanillah